kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka nabadda iyo dhalinyarada oo aad ka dhagaysataan radio sahan 89.2 FM dalal kala dhex joogooda duuma qarsalidooda eg xaramka weedhooda dhiiranida gacantooda misna kala dhinantooda haw xilan dalalbeen maanta dhegaystayaal barnaamijka nabadda iyo dhalinyarada inta uu hawadu ku jiro waxaan ku qaadaa dhigi doonaa daruufaha shaqo ee qofka dhalinyarada ah waxaana igu marti ah Axmed Maxamed Aadan Axmed Naxar oo ah khabiir u kurgalay daruufaha shaqo ee qofka dhalinyarada ah ugu horeyna Axmed Naxar haynoo sharaxo qaabka shaqo ee qofka dhalinyarada iyo waliba daruufaha magacaygu waa Axmed Maxamed Aadan magacaygu Axmed Naxar waxaan saanta wada gaarsiinayaa deeqsiinayaa ilaahidankii shaqaalaha radio sahan dhammaan inta hawlwadeenada ah si gaar ah insha Allah waxaan salaamayaa Faisal oo barnaamijkan daadihiya sidoo kale waxaan salaantayda diiran u sii gudbinayaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal khaasatan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland haddaan ugu guda galo barnaamijka su'aasha la weydiiyay ka hor intaanan qodobada iyo hawlaha u gelin waxaan rabaa inaan sharaxaad kooban ka bixiyo daruufaha shaqo la'aaneed ama shaqo la'aantu waxa ay tahay shaqo la'aanta waxaan ku qeexayaa in ay tahay marxalad dhacda marka qof si mintidnimo ah u raadiyo shaqo uu qabashadeeda karo aqoon ahaan iyo awood ahaanba isagoo markaa aan joogin fursadeedii ama aan hayn fursadeedii duruufaha jira shaqo la'aantahi waa mid baahsan waxaan rabaa inaan haddii la yiraahdo isku soo koobo dhowr qodob oo ay ugu horeyso ama caqabada ah oo ay ugu horeyso dhalinyarada iyo shaqo la'aanta duruufaheedu inay tahay koow waalidka iyagoo markaas u gol leh in ay dhiirigeliyaan ilmaha marka uu ku jiro waqtiga waxbarashada iyagoo yiraahda ilmihii ku anqariya inuu waxbarashada si dadar leh u sii wado oo u sii dheerayo ama uu magaranaysaa heer sare uga sii gaaro waqtigeedana uu ilaashado una dadaalo inay yiraahdaan baro waxbarashada baro ku dadaal waxbarashada si aad u gaarto u noqoto mustaqbalka dhow ama mustaqbalka fogba madaxweyne ama mataqaanay martabad sareysa inaad tagto ilmihii wuxuu juhdi badan u bixinayaa in uu shaqada ay ugu guulaysto waxbarashada si uu noqon lahaa qof hansare iyo magaraysa meel sare jooga martabada u sareysana oo haysto inay tahay madaxweynenimada ama shaqooyinka meelahaas ku leefalka ah taas marka waxay noqonaysaa ilmahaas inuu ku soo barbaaro ereyga isaga ah oo uu dadaalkiisa geliyo marka uu ka soo baxo heer dugsi sare heer jaamacadeed ilaa magaraysa waxbarashada meel fiican ka tago in uu yahay shaqada waqtigeeda u soo banbaxo in uu shaqadiisii ku soo koobo in uu noqdo martabada marka u sareysa ee lagu qaadanayo lacag heerkeeda sare heerkeedu sareeyo isagoo marka aan lahayn wax experience ama wax khibrad ah muxuu caqabadaha uu la kulmi karaa qofka dhalinyarada ah markii uu yahay shaqadoon caqabadaha uu la kulmi karo qofka shaqadoonka ahi way badan yihiin waxa ugu badan oo isla wada ogyahay inay tahay koow shaqadii in lagu aanayo mid dhabarka taabasho ah markaan joogno dhulkeena kan macnaheedu ay tahay qaab kale ama aaminada haato ama mid dhab ah haato kulliyaasa ku jira maanka dhalinyarada inay tahay wax jirana waa u badan tahay walow marka hay'adaha la joogo iyo lagu aaneyn karo iyadana in ay xag amni loo fiiriyo naftigeeda oo la yiraahdo qofkii hadda markii dad imtixaan galaan oo kale qofka ka soo dhaxbaxay ama qofka u sareeyay imtixaan inaan la qaadan taas oo lagu soo karo in xaalad amni oo kale looga boodo qofkaas ama loo yiraahdo qofka hadda garasho badan ugu marihin qof aan garanayno halkeen in lagu soo cadaadiyo waa macquul dadkii markaa hawlwadeenada ahaa in ay dhabartaabashaas iyaduna ay hormuud ka tahayna waa dhacdo sidoo kale caqabadaha waxaan oran karaa anigu dhalinyarta shaqada inay isku koobaan in ay helaan shaqo martaba sare ku shaqeeyaan aysan keenin aragti fikrad iyaga ka dhalata iyo firfircooni taban oo ay markaa kula soo baxaan ku sameeyaan ganacsiga yar ku sameeyaan inay hal abuur la yimaadaan oo dhanka ganacsiga inay la yimaadaan inay iyagu sameeyaan wax la yiraahdo inay dhaliyaan lacagti inay dhaliyaan oo ganacsiga iyagu dhaliyaan in ay xataa sameeyaan wax la yiraahdo investment dad waa jira hadii ay la yimaadaan wax program oo markaa fiican in dadku ay u bandhigtaan si ay u bahalkiyaan baxan oo arkaan xalkeeda tahay insha Allah waxyaalaha la sameyn karo ganacsi ahaan marka loo fiiriyo dadku waxa la fiiriyaa marka koowaad marka deegaanka la joogo fursadaha ka banaan ee ganacsi hadii noqon lahayd inay ku shaqeeyaan
ganacsiyada meherada furaan oo kale oo dadkii bulshada usoo kordhiyaan inay u sameeyaan waxyaalihii facility ama cuntooyinkiina sameeyaan inay shaahi iyo biyaha ganacsadaan waa ganacsiyadu in ay sameeyaan cilmiga ay barteen in ay intay ku sameeyaan bay grouping ku sameeyaan in ay furaanin meelo ma garanaysaa dadkii ugu faa'iideeyaan cilmigii ay ma garanaysaa ay barteen iyadoo waxay imanaysaa markaas meel ay wax ka heli karaan noloshooda ku maareyn karaan bay ka iman kartaa waxay ka iman kartaa in ay la yimaadaan in hal abuuro ka duwan kuwaas oo tiknoolajiyada qoseeya waa la iman karaan oo hadday sameeyaan in abisyo dadkii lagu hormarinay dhawaan waxa la soo saaray program la yiraahdo abis la yiraahdo dhaweeye waa qayb kamid ah firfircoonidii la yimi oo dhalinyartu sameeyeen ama group ha u sameeyeen ama ha u sameeyeen individual ha u sameeyeen qaab noocaas oo kale ay u keeni karaan xirfadaha noocaas oo kale skills badan baa jira oo la isbaro oo lagu baro macahayda lagu baro dadkii hadda noqon lahayd korontadii oo kale waa qof waa ka shaqeyn kara meel yar oo ganacsiyada yar oo aan laga xisho hala sameeyo oo qof walba wuxuu hal abuur iyo ama xoog u leeyahay soo saaro saas weeye hadalkayga halkaas u jeedaa waxaan ka soo jeesanayaa tii lagu soo anqariyay ahayd bal markaa wax barato heer sare gaar qofka isagoo master waxa la rabaa inuu ganacsiga sameeyo oo sida ganacsada yar sameeyo oo san ka xisho oo dacaayada dhalinyarta naftigeena isdacaayadeen baa jira isku dacaayadeen waxyaalo noocaas kala isoo master ama degree buu fadhiyaa meel la furtay loo baahna waa in dhiirigeliyaa qofka noocaas oo kala oo sida la sameeyaa waxa lagu dhiirigelin karaa tusaale haddaan ku soo qaato nin dhalinyaro oo ka baxay degree qaatay baa wuxuu furay meel ganacsiga oo labaaja ah oo ama contribution ku sameeyo ama isagu individual house sameeyo dadkiisu ha caawiyeen ninkaas oo kale waxaad ku dhiirigelinaysaa dhalinyartii ama odayaashii oo kale ama dadkii ejka ama dadkii watay baabuurta oo kale hadday tagaan inuu ninkii meeshii u sameeyaan suuqi waqtiga ay meesha joogaan isaga ay ku dhiirigeliyaan warnigu fikrad fiican baa la timi insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad samayso si horumariso si ballaariso branji u samayso inaad dhalinyarta naftigeeda kula taliso oo shaqo u samayso oo kula taliso iyagu inay sameeyaan ganacsiyo noocaas oo kale fursadaha bannaan oo kale saas oo kale insha Allah oranaya waa tahay muddooyinkii ugu dhalinyaradu waxay la kulmeenaa xagga cabashooyinka shaqada ama ha noqoto heer federaal ama heer maamul caqabadahaas mararka qaar ay yimaada shaqo la'aanta dhalinyarada ma jira ururo dhalinyaro ah oo isku xiran la magac baxay oo kale ururka shaqadoon si ay u muujiyaan dadka inay yihiin dad shaqadoon ah shaqana raba shaqana sugaya mustaqbal fiican raba inay gaaraan aad baa u mahadsantahay su'aashaas si macnaha xoogaalnimo iyo xooga jawaabteeda uma wada bixin karo balse waxaan dareemayaa in ay jireen mar la soo bandhigay shaqadoon oo kale la sameeyay oo waxa la ii sheegay xafiisyada qaybtooda kale in la iska soo waco oo shaqo magaraysa la iska dadkii laga diiwaan geliyo qofkii laga qaato CV-giisa waxyaalahaas oo kale waxaan sidoo kale maqlayay qoliyo mar sameeyay garowga ku soo bandhigay oo aan malay inay ahayd job noocaas oo kale carwadaas oo kale soo bandhigay oo dadkii magaraysa loo sharxay qaabkii u samaysan lahaayeen shaqadii waa jiraan dad ururo waxa jira wali waan malanaya oo aan arkay profiladooda laakiin wali aan soo shaac bixin leeyahay naftigooda doonaya dadka inay yartii khibrad u sameeyaan intay waxbarashada ku jiraan oo kale inay u sii sameeyaan khibrad u sameeyaan shaqadii la xiriiraan shaqadii si volunteer ah ugu shaqeeyaan qof walba department-ka uu leeyahay taas waxaan malaya hadii la hormariyo in guul la gaari doono ma jira dhalinyaro horay ama saaxiibada ha noqdaan ama dhalinyaro kor aad iska taqaanaan oo barnaamijyo hal abuur ay la yimaadeen qoday shaqo abuur rasmi ah lagu farxi karo oo horumar fiican gaara aad baa u mahadsantahay su'aasha haddii aan u gudagalo waan arkay weliba waxaan arkay asxaab aad igu dhow oo barnaamijyahaas oo kale ku fekeray oo aan xataa ka qayb qaatay dhiirigelintooda inaan ku dhiirigeliyo inay hore u socdaan ilaa haddana shaqaysto hawshii ku jira weliba waxaa weeye qaybtooda ay marayaan inay sii ballaariyaan inay ganacsigii oo meel fiican kasii gaaraan mid mira dhala u noqda qaybtoodna hawshii ay wadaan marka ganacsiga muxuu yahay haddaan kuu soo qabto waxaan garanayaa nin ka yimid dhulkan la yidhaahdo Kenya weliba Nairobi ka yimid oo ganacsi xaga ku hayay fiican oo weliba marketinga suuqyada waxyaalaha yar bagashada uu gaadi jiray xaggu yimid waqtigii laga soo kala caaray orange laga saaro Kenya oo 14kii inay baan jeclahay meelahaas xayaageedii ninkaas waa yimid boosaasu yimid waa nin aqoon leh luqadda sarfu ku yahay wuxuu wataa shahaadooyin kala duwan buu wataa ilaa heer degree gaarsiisan ninkaas wuxuu sameeyay wuxuu isku dayay inuu furo timajara dadkii waa kula yaabay waa ka booday fikradda muuqato waxay inuu sameeyo dhartulida hadda wuxuu marayaa waxaan filayaa booso wuxuu ku leeyahay xarunta weyneed Branjin hadda wuxuu ku leeyahay qarbu soo maraya waa rajinaya garow inuu ka furto diyaalan ka dhow koob ka yahay qofka dhalinyarada da ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd dhalinyarada da ahaantiisu waa 27 age-kiisu 27 ma dhaafisna hadduu dhaafsan yahay bilaa weer ninkaan maxaan ka aad baa u mahadsan tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka nabad iyo dhalinyarada da'da yar waxaan rajeynayaa fursadaha qaaliga ee shaqo abuurka dalka ka jira inay si hal haboon uga faa'iideystaan aad baan u rajeynaynaa barnaamijkan inay ku taxan yihiin Axmed
qofka haddii uu shaqo la'aan qabato oo uu muddo shaqo la'aanta ku jiro maskax ahaan qofka muxuu dareemi karaa? aad baa umahadsan tahay mudane. qofkaasu maskax ahaan wuxuu dareemi karaa haddii uu helo bulsho ama dhalinyaro ama asxaabta u dhow hadday ku caawiso in uu dagaalka sii wado maalin maalmaha ka midana uu guulaysan doono taqnadu min raxmatillaahina waxa weeye ay usoo dariishadaaniin oo dhiirigeliyaan ninkaas moralkiis waa dhisnaanaya. haddii uusan helin arrinta iyada ana isaga keligiis iyo noqoto in la yidhaahdo warni waa daashay iyo howlaha noocaas oo kale dismoral lagu rido ama la hanjabiyo ama la magaranaysaa ninkaas waa isbedelaya. waxaa laga yaabaa inay ku sababto in dalka iskaga tago u tahriibo, inay ku sababto in uu joojiyo shaqo doonista. waa tahay xitaa waxaa la leeyahay markuu ku fashilmo oo kale wax shaqo la'aan u dhacdo qofka oo kale in uu tahriibo. xitaa waxaa la sheegaya dhalinyarada tahriibtay in ay aad u cabanaya leeyihiin maxaa meeshaan na keen maxaa dalkeena uga soo tagnay. jiraan marka dhalinyaro noocaas oo kale oo baxday hore kadibna aad ku dhiirigelisay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo ay shaqaystaan oo shaqo abuur la yimaadaan oo nolol fiican heer saraana gaaraan. aad baa umahadsan tahay. way jiraan in aan taladaas dhalinyaro siiyey weliba caqabado badan maray. waxay laakiin waxa adkaatay in ay qaataanin oo ku dhiiradaan soo noqod maadaama ay kharash badan iyo hawl badan galeen. waxaan kula sii taliyey in shaqo kasta oo u saamaxaysa meesha ay joogaan inay ka qaban karaanin qaabkay u qaban karaan ha u qabteen in ay ku qabtaanin walow ay ka soo gasho lacagta ugu yar ugu qiimaha yar ay shaqeeyaanin oo kadib haddii si wadaan ay horumarka gaari doonaan haddii alla idinka dhigo. marka laakiin rag soo noqday oo aan tala siiyey oo aan ku guubaabiyey way jiraanin oo dalku soo noqday maasha allah. ragga qaybtiisoo kale rag abwaanaabaa ku jiray intay soo arkeen dhibka soo noqday haddana waxa weeye ka wada gudaha dalka ka wada inay dhalinyartii ku dhiirigeliyaanin aftahanimadoodii gabayo u tiriyaanin meel kastoo mataqaanaa waxa weye tagaanin ay maasa ka tiriyaanin oo ay waxa weye ka mataqaanaa ay hortagaanin oo ay ka dhiidhiyaanin in dhalinyartu ay tahriibto maadaama aysan ogaal u lahayn meesha u socdaanin. dhibtu waa taa inay meesha u socdaan ogaal u lahayn. waxaa jira dhalinyaro badan jaamacada dhameeyey waxbarasho aqoon fiican ka caajisayaan shaqooyinka yaryarka in ay qabtaan in shaqooyinka yaryar laga soo bilaabo hoos laga soo dhiso dhexbartan lasoo gaaro lasoo kaxeeyo ilaa kor la yimaado. marka maxaa u diiday dhalinyaradan in ay hoos kasoo bilaabaan shaqooyinka? waa aad iyo aad baa umahadsan tahay. boontii aad muhiim u ah baad igala hadashay ama aad i weydiisay. waxyaalaha sabab u noqon kara dhalinyartu in ay shaqooyinka yaryar aysan qaban waxaa jirto maadaama uu ninkan heer sare gaaray jaamacadiina uu ka gudbay marxaladii koowaad ama marxaladii labaad oo kale. waxaa ku jira heerka aad maanta joogto qabweyni baa jira war heerkaad joogto aqoonteeda waa dhaaftay adigu uma aad qarantid waxyaala noocaas iskala dhicinaya iyadoo ay ku laran tahay dacayadii bulshada maadaama bulshada naftigeeda ay ku dacayadeynayso war nin waxaa tahay meel sare tegay ama heer sare aqoon sare leh see bay u noqonaysaa inaad ku shaqayso businesska yaryar ama shaqooyinka yaryar oo kale ama howlahaas kale aad u gasho see u noqonaysaa. walow aysan badnayn dacayadahaas haddana isagaa qofku marlahaan isu oranaya isulana qabweyn. dhan kasta waxaa laga yaabaa inay kaga timaado ha ugu horeeyeenba dadka markaa aadka ugu dhow oo dadkiisa inay aysan hankoodu ahayn inay ku shaqeeyaan. iyadoo taasoo ay tahay aan oran karo hanyari maadaama qofku wax usoo baranayo ama uu u haan qaadayo in uu wax kasta oo shaqo waa sharaf. waxaa daliil u ah taas. sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi inaad tuugsato waxaa ka haboon waqtigeedii waxaa ka haboon inaad qartato oo qori soo gudhood iibiso. shaqo waa sharaf meel kasta ha gasho. marka dhalinyartu waxaa quman ama lagu cabin karaa in dee dhankii diinta oo kale laga soo dhiso oo lagu naseexeeyo dhankii diinta lagu naseexeeyo ee aan lagu naseexin aragtiyo kale. marka waxaa laga yaabaa markaas isbedel inuu yimaado dadkuna markaas xataa wacyigelin la sameeyo dhalinyartu ay ururadaas kale la sameeyo ururo qaabilsan dhalinyartii iyo qaabkii u dhisi lahayn moralka bulshada naftigeeda qaabkii lagu wacyigelin lahaa in shaqo waa sharaf meel shaqo ku jiraba in laga galo in lagu carbiyo ee aan la fiirin aqoonta iyo heerka markaa la joogo. axmed aad baa mahadsantaha. waxaad tiri waa in qaanaa loo sameeyo shaqooyin waa in loo sameeyaa waxbarasho waa in loo sameeya waxyaabo badan baa soo taabatay. waxaa ku jira waxyaabo muhiim ah sida shaqooyinka qofka in uu abuurto oo kale. marka qofka raba in uu shaqo abuurto wadada ugu horeysa uu marayo maxay tahay? qofka shaqada abuuranaya wadada u horeysa ee ku haboon in uu maro waxay noqonaysaa in horta uu helo dhiirigelin inuu helo in isagu uu yahay qof horta ay ka soo go'day rabitaankuna uu jiro. rabitaan markuu uu jiro oo qofkii wixii qofku usoo bandhigayaa qof wixiis ku cudaysan haysanaya ma jiro ama weelkii ahaato ama saaxiibkii ahaato qofka markaa ugu dhow uu soo bandhigaya. bulshada waxyaalahan ka wacyigelinayno bay ka mid tahay
in aanu qofkii uu talada uu soo gudbisto inuu u garab siiyo inuu ku caawiyo aalada ku caawiyo qofkan inay tahay barnaamijkan barnaamij fiican inuu yahay ganacsi miro dhalaya inuu yahay inuu hore u socdo wuxuu isaga markaa ka qaban karo uu la daadihiyo hadalbaha ugu yaraadee talaha ugu yaraada. ma jiraa aalad aad ku bahowdeen ka dhalinyaro ahaan adigu waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada ma jiraa aalad ay dhalinyaradu ku bahoween oo ay fikradahooda shaqo ay isku wadaarsadaan oo isweydiiyaan see wax u qabanaa ee wax ka bilownaa masaana qurux badan ma sidana ma jiraa meel fikrada noocaas ah dhalinyaro aaminsan ee ay kusoo bandhigtaan inay jiraan? su-aasha waa su-aal muhiim ah weydiisay aad baa umahadsan tahay. barnaamijyadaas oo kale ee ku bahoween dhalinyaro si looga wada hadlo shaqooyinka iyo qaabka wax loo qaban lahaa qaabkii nafta loo horumarin lahaa qaabkii bulshada loo horumarin lahaa qaabkii dhalinyaradu iyagoo isu horumarin lahaayeen way jiraan iyadoo weliba noocyo kala duwan leh. waxaaba ugu muhiimsan ba oo dadku aad isugu sii xirxiran yihiin bahdeeda ay ku xiran tahay oo dhalinyartii siday uga soo wada baxeen heerka waxbarashada iyo aad isugu sii xiran yihiin oo aad isugu sii nugul yihiin. waxayna isla raadinayaan isla doonayaan xataa inay sameeyaan grouping business inay sameeyaan siday hadba isugu dhow yihiin isugu magaranaysaa ay xiran yihiin inay sameeyaan in xataa qaybtood ay sameeyaan waxyaalaha ay u baahan yihiin inay horumariyaan oo ama ganacsi ha ahaado ama wax shakhsi markaa qosayso oo ganacsi ku abuuraya ha ahaato inay xataa isu kaalmeeyaan aragti iyo araag isku dhiirigelinteed markii laga soo tago in xataa budgetka ay wadaagaan iyagu ay iskaalmeeyaan way socotaa barnaamijyadaas way socdaan way jiraan. waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sii horumaraan oo dhalinyaradu iskaga filaan doonto hawlaha noocaas oo kala ah ayba samayn doonaan weliba annagu hadda aan ku tala jirno inaanu wacyigelin isku sii samayno dhexdeedii inaanu isku dayno inaan samayno sidai isugu dhow yihiin dhalinyartu oo xagga waxbarashada inta mataqaana kasoo wada baxda oo markaa heer kusoo wada baxda intii heer hadda ku wada jirta intii hore u dhamaysay oo iyaguna iswada taqaanba in loo sameeyo ganacsiyo waaweyn oo ay iyagu markaa ku midaysan yihiin ilaa 6 qof 5 qof 7 qof meelahaas ay ganacsiyo noocaas in la sameeyo oo la abuuro markaasna shaqo abuur ay u sii noqoto dhalinyartii kale oo markaa iyagu ka sii shaqeeyaan meeshii halkaasna ay ka soo bixi doonto insha Allah. wixii dhan way isku wada xiran yihiin oo nimankan haddii wax sameeyaan kuwa kalena way ka faa'iideysanayaan si fiican waa sida Ahmed aad baa mahadsan tahay. waxaa jira dhalinyaro badan marka ugu horeysa ganacsiyo samaystay ama hal abuuryo ay la yimaadeen kadib hal abuurkii way ku qanacsan yihiin way ku faraxsan yihiin masha Allah way degan yihiin. marka waxaa jira teeda kalena dhalinyaro la mid ah iyaga ganacsiyada kuwaas oo kale dhalinyarada sameeyay xoogaa isdhahaya ganacsiga ma sameyn karin waxyaabo noocaas oo kale marka qofka dhalinyarada arimahaasi ku kala fikir. su'aal muhiim ah baad weydiisay oo waqtigeedii joogta dhalinyarta sidaa sheegtay masha Allah waxaan leeyahay Allah u sii barakeeyo dhalinyarta ku guuleystay inay ganacsigooda sii horumariyaan iyaga ganacsigooda iyo reerkaba Allah u barakeeyo ilaahay idinkii dhalinyarta kale iyaguna hankii qaba laakiin ay jiro gaab ku jirana horta marka koowaad waxaan u dardaarmayaa taqwada alle dhammaan dhalinyarada iyo bulshada Soomaaliyeedba in la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan hadii koonka leenoo keenay ay tahay cibaadada alle in la caabudo dhalinyarada waxyaalaha ugu badan oo aan soo karo hadii ku dadaalaan inay gool gaarayaan ay tahay in la ilaaliyo waqtiga iyo salaadahooda iyo wixii dacwada maadaama waa in ka baxnaa waajibaadka diiniga ah markaas baa waxa fududaanaya wixii markaa inaga u baahnay aakhirna adduunka waxa la yiraahdaa waa daarul amal oo lagu shaqeeyo aakhir lagu shaqeysto Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay la tansa nasiibaka min ad-dunya waa in horta marka koowaad ilaashanaa salaadaha sida salaada cishaha oo kale salaada cishaha salaadaha rasuulka sallallahu alayhi wasallam sheegay laba salaad qabowga casarka iyo aroorta salaada cishaha qofka tukaday ku tukada jamaaca rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay inuu tukaday habeenkii bar u taagnaa salaatul layl salaada arooriyada sidoo kale inay tahay qofkii markaa iyadana jamaaca ku tukaday inuu maxaan ku raday habeenkii u dhameystan yahay sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay salaada arooriyo adanka waqtigiisa aqanka ka hor labada ragacoo la tukaday inay ka khayr badan yihiin waxa adduunka ku sugan oo dhan sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri shimbiri kama soo duusho buulkeeda ilaa irsaaqada buulkeeda kama duusho hadii duushan waxay u doonataa irsaaqada u baxdaa iyadoo aan meel wax ku ogeyn oo meel wax u saaran marka insha Allah waxaan ku boorinayaa marka koowaad la ka cabsi dhamaanteen marka xigta Ilaahay subhanahu wa ta'ala in Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisaab marka dadaalka la nimaano wax kasta tamaninaynno fadhigeena ku imanayaan dadaalka yaran la tagno diyaaladeen ka dhigo marka dhalinyartaas oo kale sidaas waxaan rajaynayaa intaas marka ay qofku uu sameeyo oo ku dadaalo isaga waxa galaysa firfircoon waa galaysa meeshii saaqada ugu qorayd waa loo dhaweynaya dadaalka uu la yimaadana waa ku helayaaba
marka waxaan oran lahaa dhalinyarta dhammaan insha Allah in lagu dadaalo horta la ilaaliyo waqtiga iyo salaadaha iyo magaranaysaa kitaabka alle quraanka lagu dhiganaado sidoo kale akhriskiisa iyo tafsiirkiisa intaba hamiga dhalinyartu ay qabaaniin oo xogaa ay muddo gaab kaga jirana insha Allah fadhiga ha kicin ha sameeyeen dagaal dhaqaaq sameeyeen maadaama ay xarigi alla adkeeyeen dhaqaaq ha ugu dareen in ay raadiyaan wixii marka ay timaanay haduu yimaado dhaqaaqa isaga ba iska imaan doona waa imanayaaba sababta qofkii marka mar hadii uu qalbiga ka qanacsan yahay oo uu ku qanacsan yahay xarigi alla inuu adkeeyay waxa kale oo fududaanaysa dhalinyarta waxaan u dirayaa dhammaan meel walba oo ay dhalinyartu joogto in dhalinyaradu ay horta sidoo hore soo sheegnay taqwada alle ay ku xiraadaan xarigi alle ku xiraadaan marka labaad waxaan ku dhiirigelinayaa shaqo waa sharaf shaqo meel kasta oo shaqo dhaqaaq shaqo ay ka jirto ama ay hal abuur inay la yimaadaan iyagu ay sameeyaan ay tahay ama fursad banaan oo ay ka arkaan marka meesha ay joogaan ay baahi u arkaan bulshada ay ugu danaynayaan iyo dantoodaba in ay hore ugu dhaqaaqaanin oo ay ka baxaanin hanyarida iyo qoorsiga ama qabweynida kaga jirta wareer sala joogtay shaqadan kuma qabanto inay ka baxaanin oo ay shaqo meel ay taalo ay galaan ha ugu yaraato nasidir waqtigiisa xaga suuqa sheegay in qoriyo uu soo guro qofku uu iibsado ha ugu yaraato dadkina faa'iido ugu jidda qoriyo heshiidayay isagana faa'iido ugu jiddo hadda wuxuu ka helayaa nolol maalmeedkiisa uu ka helayaa marka waxaan onayaa dhalinyarada shaqo qoorsi ma leh shaqo meel ay taalba horaha lagu dhaqaaqo waliba waxaan rabaa in dhalinyarada aan kula dardaarmo in ay sameeyaan hal abuur la yimaadaan bulshada tan waxay u baahan tahay in wax loo soo kordhiyo waxay u baahan tahay in loo shaqeeyo bulshada hooyada kamida aba kamida ummadii ba kamida gaabkaaga inta taagan yihiin hiriyaho waa kula taagan yihiin hiriyaho marka la yiraahdo dadku waxay u fakaraan oo kaliya hooyada iyo aabaha marka dadka soo koriyay u fakaraanin laakiin qof walba oo raali kaaga noqday inuu dhageysto fikradda adigu aa wado qof walba oo kugu darsaday waa wanaagsan tahay fikraddaas ku yiri qof walba oo kugu saaciday waqti inuu kugu siiyo inuu kula fadhiyo marka wax taqdiinayso ama wax dejinayso waxay yihiin dadka hiriyaho kula taagan bay yihiin marka insha Allah hala weerayo sidana hala yeelo baan leeyahay dhalinyarta waana rajeenayaa waqtiga soo socda mustaqbalka dhow sanadadan tan dhow ah in dhalinyaradu ay horumar ka gaari doonto hal abuurada shaqo in dhalinyaradu ay ka gaari doonto horumar baahiyaha jira ee hadda muuqda dhalinyaradu ay maskaxda ka saaraaneen dalku waa shaqo la'aan maskaxda ka saaraaneen in ay sugaaneen meel xafiis oo kale meel shaqo taal hal abuur iyo wala yimaada ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga bahda saxaafadda radio sahan oo bulshada marka loo eego wax badan tartay wax badan u qabatay oo ay kamid tahay in ay wacyigelin u sameeyaan bulshadii inay soo tabiyaan warar xaqiiqo ah inay soo tabiyaan wacyigelino iyo ku saabsan dhan walba inay sportski iyo barnaamijyadaas naftigeeda ay soo daayaan oo ay dad kala socdaan in dhalinyaradii u sameysay barnaamijyo u qabatay ay kamid tahay hadda hawsha aan ku jirro nabadda iyo dhalinyarada loo sameeyay dhalinyartii iyo bulshadiiba si ay uga faa'iidaaneen in dhalinyarada naftigeeda awood ay leeyihiin xagga magaranaysa wax soo jeedinta xagga wax tabinta xagga wacyigelinta bulshada in ay fikiraan dhalinyartu fikradii dhalinyarta la soo saaro intaba ay ka qayb qaadanayso aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay Allah idinka abaal mariyo adduun iyo aakhirada liibana intaas ayaan ku soo gabagabeenayaa barnaamijka nabadda iyo dhalinyarada oo aad ka dhageysanayseen radio sahan 89.2 barnaamijka waxa uu ku saabsanaa daruufaha shaqo ee qofka dhalinyarada intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal